xaalad ugu dambeysay ee walaalka uu fiican yahay hadda boqolkiiba 99 sidoo uu ka fiican yahay madaxo ruuxa laakiin ma hadli karo maxamed mi maqashaa mi maqleene ilaahay ma dhasho inuu iga dhiga iga fiicnaad markaan allah waxaan iga dhibaateena caafimaadka iyo xanuunkaba allah haya ilaahu caafimaad sariica oo degdeg ah wiilkaasi Soomaali waa horay u mahmahday waxay yiraahdeen nimaad dhashay kuma dhalin bimacnaa sida adigu aad ugu beernaxaysid kuguma beernaxayo hooyaduna waa ka sii xag jirtaa habeen madow guri gudihii lagu jiro godcura ilmaha hooyadu markay saa dhinaca ugu hayso haddii abeesa dhinaca shanqar ay ka maqasho ama sanqar waxaad u taqaanid qalaf-qalafaday ka maqasho gacantay dhinaca la aadaa iyadoon ku fekerin ama waxaanay ku cunaan iyada oo ka fekeraysa amu ilmaha qaniina salaamullaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu asxaabta sharafta leh waa mar kaliya muuqaal cusub bartan aad iga dheeganaysaanna waa bartiinii waa bartaan ku kulmi jirnay waa la ka hamidhiyo baro aad iyo aad u mahadsantiin walaalayaal walaalaha qalbiga soo dhawaada ku soo dhawaada meel laydinka jecel yahay allah ayaa mahad iska leh mahadan la soo koobi karin ka mugiyo miisaan weyn dunida dhammaanteed sii share gareey barnaamijka asxaabta la wadaaga channelka subscribe inoo saara like meel dheer bayna gaarsiinaysaa nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam aan ku salino haddii ay xilli salaad ku tahay walaal kac istaag tuko nabigana haddaaba maqashid inaa ku salidid waajib bay kugu noqonaysaa maadaama aan muslim tahay waayahay cabsida ilaahayna in isu dardaaranno marka koowaad waxaan ku hormaraynaa hooyada xanuunka badan arrinteeda waa dib dhigaynaa waxaan ku hormaraynaa walaalkeen qaxwayste oo xaaladiisii aynu ogeyn meeshay maraysay ducadiinna ummadda Soomaaliyeed qadarka ilaahay waa meeshiisa laakiin bisabab ducadaasa u ah sidaan aaminsanahay ninkii nuuxsiga laga waayay markii hore oo sakaraadka ahaa dhakhtarkii gaalka ahaa yiri kan waa u dhamaatay khalaas maskaxdiisu xataa haddii uu caadi noqdo hadalkii gaalku yiri wuxuu ahaa hadduu caadi noqdo xataa caqli ma yeelan doono fahmaysa haddii uu xataa roonaado naafana wuu noqon doonaa ilaahay galladii waxaa ah in lagu himidba mar uu dhaqaajinayo gacmihii ay dhaqaaqayaan maxamed may maqashaa marka la yidhaahdo haa uu leeyahay uusan hadli karayn oo keliya xanuunkii qabtay ilaahay waxaan leenahay intaa ducay ku gaaraye ducada walaalayaalow aynu sii kusii kaalmeenno walaalkeen aruush ayaa inoo soo duubay muuqaalka soo duubay bal aynu daawanno xaalad ugu dambeysay ee walaalka uu fiican yahay hadda boqolkiiba 99 sidoo uu ka fiican yahay madaxo ruuxa laakiin ma hadli karo maxamed mi maqleene saas madaxo qala mi maqashaa okay ma sha Allah madaxo saas ugu ruuxa laakiin xaaladiisa sidoo hore way ka fiican maxamed may maqashaa markii uu yiri ducadiina ilaahay subhanahu wa ta'ala uu aqbalay meesha ka sii wada khayr Allah idin siiyo isagaan arkayn kaamarada waa ka dhex aragnaa markuu leeyahay maxamed may maqashaa weliba degdeg buu ugu jawaabayaa degdeg hadalkii baa maqan ila fiiriya maxamed may maqashaa madaxu saa u dhaqaajinaya macnaha waa sikimuu ku jawaabayaa u fiirso xaalad ugu dambeysay ee walaalka uu fiican yahay hadda boqolkiiba 99 sidoo uu ka fiican u fiirso madaxo ruuxa laakiin ma hadli karo maxamed waa hor jawaab mi maqleene saas madaxo qala mi maqashaa okay ma sha Allah madaxu saas ugu ruuxa laakiin xaaladiisa sidoo hore way ka fiican tahay boqolkiiba boqol ducadiina ilaahay subhanahu wa ta'ala uu aqbalay meesha ka sii wada khayr Allah idin siiyo arush anuna si gaaraan kuugu duceeyay maadaama ninka garab istaagtay ilaahay garabkaaga ha istaago waayahay aynu u ducayno aruush laftigiisa wiilkaas walaalkeena oo xanuunsan isagana aynu u ducayno waa kan ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan weydiinaynaa maxamed way maqashaa maho ya mi maqashido ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ku weydiinaa walaalkii inuu ilaahay caafimaad taam ku siiyo allahumma amiin ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ku weydiinaa xanuunkan hadda ku haayo ilaahay cid walbo ilaahay kan faqiirka iyo kan taajirka
kan xoogga lahayn oo ilaahay u awoodo inuu xanuunkan iyo xanuun ka daran saaro inuu ilaahay kaa dulqaado آمين آمين awooddeena iyo xeeladdeena wayna qawaysay inaan xanuunkan kaa dulqaadno oo caafimaadkaaga aan ka fikirno آمين laakiin ilaahay subxaana watacaala waxaan ku weydiinaa walaalkii waa imaqashaa maho هذا حد منها وكمغلى يا بس ilaahay waxaan ku weydiinaa caafimaadkaaga inuu kuu soo celiyo ilaahay waxaan ku weydiinaa inta aa xanuunsanta inuu ilaahay dembi dhaaf kaaga dhigo ilaahay subxaana watacaala waxaan ku weydiinaa nolol qurux badan oo bashbashi barwaaqada إن شاء الله وقعيا inaa ugu xoog badiso facaaga inaa ugu xoolo badiso facaaga inaa ugu xaniyo badiso ilaahay subxaana watacaala waxaan ku weydiinaa inaad naqatid tusaale nool oo qof kasta ee muslim ee shalay xoogga badnaa maanta ilaahay xoogga uu ka qaaday tabarta uu ka qaaday haddana ilaahay dib u siiyey inaad tusaale u noqotid cid walba tusaale nool inaad cid walba u noqotid ilaahay subxaana watacaala ku weydiinaa maanta waa maalin carafo ah ilaahay dartiisa u soomannahay adiga waa awoodi weysa inaad soonto maalinkan qofkii soomay ilaahay subxaana watacaala wuxuu u cafiyaa dembigiisa sanadkan iyo sanadka soo socda ilaahay waxaan ku walaalkan caruush maasha allah ilaahay ha barakeeyo si fiican buu nooga haqabtiray wiilkaas xaaladiisa aad baan u eegayey mar walba waa booqdaa caruush aad baan u booqdaa waxaan is idhahdaa bal inuu wax cusub soo geliyey waxaa jira muuqaal kale oo aan arkayey kolba life buu ku jiray markaas baan u malaynaya dad baa ka duuduubay waan waayey meeshu ku jiray laakiin lugta kale laab buu leeyahay lugtu soo laabayaa marka ta kalena wuu soo laabayaa muuqaalkaa laga dhex arkayaa marka ilaahay galladiis weeye xanuunkan dadka uu ku dhaco aniga aabbahay oo kale allah u naxariisto xanuunkan oo kale u dhintay saasoo kale maskaxda dhiig kaga furmay qofka wuxuu ku bilaabaa khalkhal aabe anuu isoo wacay aabbahay hadal qaldan oo isdhaafsan buu igula hadlay aad baan u xusuustaa ilaahay u naxariisto calaa iyo kulli xaal kama kicin toos buu ugu dhintay wuu ritay finish wuu ku tegey dadka qaar ka kacaa waa jiraan laakiin ninkan hadda waxyihiisi way dhaqdhaqaaqayaan jawaabta deg deg buu u bixinayaa hadda hadalkii uunbaa ka maqano xanuunkii dee nabarkii ku dhuftay baa haya ilaahay waxaan uga baryaynaa kulligeen aynu u ducayno in ilaahay caafimaad siiyo waayahay wixii ka soo kordhana waa isla socon doonaa ducadeenna baa ilaahay halkaa ku gaarsiiyey wiilkaase walaalayaalow aynu u ducayno waayahay walaal safiyo baan u gudbaynaa hooyo soomaaliyeed nimaad dhashay kuma dhalin wax kale aan ku sifeeye garan mayo xarbi baa ugu qoran oo harbi baa ugu qoran channelkeeda subscribe saara hoosna waa idin soo dhigayaa insha allah linkiga halkaas ka sii tixraaca way ooyeysaa waad aragtaan wax allaale iyo waxay ku hadasho way garan lahadaa gaaladii baa soo wacday wax laga naxo looga soo dhawaada walaalayaal Soomaaliya ilaahay ii soo barya ahay muhiim taas ilaahay baan barya ilaahay ii soo barya soo keenana ay aamusi laadahay ciidayn waa lagu xirayaa wax kale oo solution kuma hayno waa ku xiranaa bay leeyihiin sabab hadda intaa idinka maqnaan waxaan la hadlayaa kuwa carruurta waxay sameeyeen way soo wacayaan waxay leeyihiin waxa waaye waa lagu xirayaa wax kale mahayno ninkii wuxuu iska kaa dhahayaanbo ninkii wuxuu dhahay kuu doodayay ninkii kuu doodayay wuxuu dhahay jeelta imaan qaadanaynaa wax kale oon samaynayna malaha ninka xataa nin fiican maahan oo ii dooday kii u doodayay way sii dhahayba jeelta imaan qaadanaynaa ayagana waxay dhaheen jeelka lama yaqaano intuu yahay taymkiisa haddaba jeel waa ku jiraa hataaka
shala waa soo weydiiye waxaan ku dhahay guriga ma ku qaadan karaa mayo dheh waa inaad jeelka weyn aadaa waa in gabadhaada ku cafisaa oo ay imaato ay dhahdo hooyaday wax uma haysto amase aad jeelka weyn aadaa markii waan ku leeyahay Somali communitygii haddaan Minnesota joogi lahaa shalaydu waa shay xaaraana shalayga ma fiicna communitygayga way caawin lahay laa ilaaha ila allah laa ilaaha ila allah macnaha communitygaas Minnesota aad u caawin lahaa dad badan oo xalqa ilaahay baa jooga kala duwan meeshan dad yar baa jooga meeshii joogto waxay la ooyeysaa gabadhaadu hadday ku cafiso gabadhii baa laga laayahay hooyada cajiib 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 عجيب عجيب إله ذا وين واحدة إله ذا وين واحدة إله ذا وين واحدة إله يحمسنا المحيا أنا الكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فائدة قربها تعال waxaa ka badan khasaaraha yaal wanaag kasta oo dadku helaan waxaa kaa tirtiraya waxan oo kale wax kasta oo wanaag oo la helo dad badani ku liibaanaan tan oo kale markaad aragtid waa masaxaysan ilaahay caawi walaalayaal waxaan usoo galo inaa ii ducaysiin hadalkaa dhegeysta ii soo duceeya walaalayaal ii soo duceeya aamin ilaahay rafaasana awal jaal baan ku jiray guriga jaal baan ku jiraa haddaba kan jaal baan haddaba ku jiraayo haddaba banaanka ma joogi oo haddaba gurigaan ku xidhana waxaan ku yidhi halka sano guriga ku xirnayni kulaha halka sano guriga ku xirnayni waa ushii ilmihii ushii aad dishay jeel kalena waa lagu ballaminayaa intuu doono ha kugu noqdo oo jeel caadiya kii waa awal lugta wax kaga xirnayn guriga joog hadeerta naagtii ay la soo hadashay hooyadan muuqaalkeeda hoos baa idin soo dhigayaa si fiican u wada daawada muuqaalo kala duwan oo kala dambeeyey oo saacado yar u dhexeeyaan bay soo dhigtay awlaadda ilaahay haynoo hagaajiya awlaadda ilaahay awlaadda haynoo hagaajiyo ilaahay awlaadda haynoo hagaajiyo aad bay waxay u yihiin mararka qaarkood dhibaato waxaad maqlaysaa ilmaha aabihii dilay ilmaha hooyadii dilay tanoo kale walaalayaalow iila hadla shacabka Soomaalida waxay ka codsanaysaa dadka yaqaan muuqaalkeeda haddaad daawataan dadka yaqaan asxaabta taqaan ummadda garanaysa gabadha yar walaalayaalow iga baryo hooyada cafiya dhaha war dadka deegaankaa deganow oo waalidiinta ah oo carruur waa leedihiin gabadhaa garanaysa war fariintaa gudbiya ilaahay dartiis carruurtiinna uga dhaadhiciya inay gabadhaas dhahaan hooyadaa cafi hadday hooyadaas cafiso waa laga sii daynayaa jeelkana waa laga cafinayaa silsiladan jinniyo ku xiranna waa laga cafinayaa waxa kaleeto aan iraahdo garan weeyo dhammaanteen aynu u ducayno ilaahay ha caawiyo ilaahay baa caawin kara rabbi gaaladan ilaahay baa ka awood badan ilaahay baa awal u khasbay ilaahay baa uga khasbay inay keenaan oo biil iyo meel iyo hoy iyo magaranaysa ilaa dhulkan
idahani ay degan yihiin waa dhul laysku cadaabo waa cadaab dad baa janno u haysta dhulkan oo kale reer galbeedka dhulkoodu waa cadaabu dunya waa cadaabkii adduunyada bimacnaa waxaan uga jeedaa waxaa ku jirta naaraha ilaahay uu sameeyey naar la yidhahda samhariira xilliyada qaarkood waa samhariira caadiya qofku haddii la yidhaahdo warniya anagu sharci ku siin mayno waxba ku siin mayno gurina ku siin mayno cunana ku siin mayno orod naga tag adigu soo ma iman ha orod iska tag oo guriga meeshan oo dadka ugu yimi oo ay ku qaabilayeen ay bannaanka isaga saaraan waa finish ma noolaan karo saacado kooban buu noolaan karaa geed buu isu bedelayaa oo dhimanaya nafta ka baxaysa marka khasabkaa ilaahay u khasbay kaas mid 10 jibaarkiis ah ilaahay ha u khasbo ilaahay ha ka badbaadiyo jeelka gabadheeda yarna ilaahay ha u soo hanuuniyo اللهم يا مقلب القلوب إله وذا قلوبها قد قديه إله أهنوني قبل هذا يرتا إله أهنوني إله أهنوني هو يداس يويل كان وحن سوس وقبطي وحيابها كان حنون كاس وكله بيكمتها لكن وهو يصبر بدن سيد أندريميو إلهي هالسوق هو يوم بدن باكر نوعان قربها أقربان qaar baa saasoo kale marka ilmaha looga qaado oo magaranaysaa waa waxaan maskaxdu qaadan karin ilmahaagii ha ku cafiyo maskaxda bini'aadanku waxaysan aqbali karin weeye markaynu Soomaali nahay muslimiin nahay waa wax aynaan aqbali karin oo cajiib ah moogta ilmahaagii baa lagaa baryayaa okay marka dad baa maskaxdu dhag jiiraysaa irbad yar bay ku dhuftaan kinin bay siiyaan qof qosol buu iska galaa حبا موجة واشب بمعنى يربطوا هنا الراعي إياga kadambeeyey kadibna dejin si uusan magaalada uga qasin dadka meeradooda u jijibin baabuurta halkaa baakimada iska taalla uusan u jijibin waa faraxsan yahay war hebel haye isku qosliya hooyada maadaa dilay walaashaa miyaa fuushay wax kasta le adiga oo laga xumaado oo cayi ah oo bala iska faraxsan yahay oo qosliya ilaahay baan ka magan galay annaga inta islaamana ilaahay ka amaan geliyo gabadhaasna ilaahay ha u soo fududeeyo oo ilaahay jeelka ka badbaadiyo gabadheeda ilaahay qalbigeeda ha u hadeeyo walaalkeen qaxwaystana ilaahay waxaan ka baryayaa xanuunka inuu ka kiciyo oo kiyo soconaya oo tusaalaha nool noqday oo caadiya ilaahay ha nutso intaasaan kusoo gabagabeynaya waxaan idinkaga tegayaa salaamullaahi calaykum waraxmatullahi wabarakaatu nooli kulante